shiinuhu wuxuu jibaaray howlgalladiisa militari ee uu ka wado xuduudaha jasiiradda uu sheegto ee Taiwan. waa howlgal ay Taiwan ka digtay cawaaqibka ka dhalan kara. shiinuhu marna ma wiiqi karo xaqa ay Taiwan u leedahay inay isdifaacdo. daandaansiyada militarina kaliya waxay sii adkeynayaan aragtiyaha shacabka Taiwan, ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda difaaca ee Taiwan oo ka jawaabaysay howlgallada Shiinaha. Shiinaha ayaa diyaaradihiisa dagaalka iyo maraakiib u diray hareeraha jasiiradda. waa jasiirad Shiinaha ka gooday kadib dagaalkii sokeeyay sanadkii 1949 isla markaana ay asaaseen shacabka Taiwan oo aan ogoleyn maamulka Shiinaha. xisbiga shuuciga ee Shiinuhu weli wuxuu aaminsan yahay in Taiwan ay ka tirsan tahay dhulkiisa. wasaaradda difaaca Taiwan waxay sii deysay muuqaalo muujinaya ciidamadooda oo dhoolatu sameynaya. qoraal ay ku ladheen ayaa lagu sheegay in aanay dagaal u jeedin balse aanay marna daciifnimo muujin doonin. Taiwan waxay imika ku hubaysan tahay hub casri ah oo Mareykanku uu ka iibiyay. jasiiradda ayaa heshiis ku kacaya $10 bilyan oo hub ah sanadkii hore la saxeexatay dowladda Mareykanka. Shiinaha ayaa diidan horumarka militari ee Taiwan ay sameynayso iyo xidhiidhadeeda dibadda oo ay kordhisay. bariga Afrika waxay dhawaan xafiis cusub ka furatay magaalada Hargeysa, taasoo dowladda Shiinuhuna ay si adag uga soo horjeedsatay. Khadar Haybasaab TV. waar saaxiib maxaad noo kicisay riyo wanaagsan baan ku riyooday. waxaan ku riyooday shirkaddii Telesom oo soo kordhisay adeeg la yiraahdo Kaafiye oo aad $7 bisha oo dhan ku hadlayso. kumaad riyoon ee waa run hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Somaliland. tayo waa Telesom.